af Soomaaliga ku hadashay waan u hambalyeynaya ma sha Allah qalin jabinteena joognay arbisna waxaan leeyahay isiyo sharaf ku noolaada ilaahay ka dhigo ardaydii meel fiican gaadha badriyo ha insha Allah soo duceey waxaan tagayaa London reer UK waan soo socdaa Somali week baan ka qayb galayaa insha Allah bismillaahi kariim korma ayaa laga yaabaa maadaama taageerayaal badan oo dhinaca dibadda aad leedahay inaad dalka ka baxdo Somali week baan ka qayb galayaa hadii la yiraahdo maalinta bilaamay waa jooga hadii la naftaygu simo ma noo kala sheegi kartaa wadamada aad marayso maadaama wadamo fara badan aad marayso iminka badriyo UK baan tagayaa socdaalka ugu horeeya reer UK na waxaan leeyahay waan soo socdaa ma sha Allah aad baad mahadsantahay kulley waxaan ugu maqaalaa inaad wadamo badan aad mari doonto wadamada aad maraysana inta badan waxaa dhacda Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo qaarkood waa lagu kala baday dadweynaha degan oo in qaarkood xaflada qaar fanaaniin laga joojiyay iyo qaar lagu qabtay arrimahaas jira balka waraarinta baqdin ma ka haysa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto badriyo waan salaamayaa in taageerayaasheeda meel kasta joogo waan salaamayaa may baqdin igama hayso oo ay fanaankoodii baan ahay meel kasta way igu soo dhaweynayaan farxadna waan ka filayaa fanaaniintu baa la yiraahaa markay mudafaka ku jiraan qaarkood way ka baxaan adiga goorma ku qorshaysan mise waxaad inaad fakar sii wato insha Allah bariyahan horta waan ku sii jirayaa badriyo laakiin waa muddo dhow waan soo koobaya hadii la yiraahdo fakka sidiisaba maxaad ku micnayn lahayd adigu wax qurux badan oo ku dayasho leh fanaaniinta Soomaaliyeed meel kasta joogaan waxaan oran lahaa bulshadiina wacyi geliya waxa wanaagsan u sheega waxa xun ka reeba wacyi gelinta idinku mar kasta kuwa u taagan noqda saasaan oran lahaa fanku waa wax qurux badan meel wanaagsan yaala suugaantuna waa wax dadka dhiiri gelin kara qalbiga iyo niyaddana ka wadayn kara ku kaab cilmigaaga qaranka meel kasta aad joogto aad baad mahadsantahay barnaamijyo badan ba ayaad qabatay oo qabyaalada qaarkood ka hadlayaan qaar bacayn caawa barnaamij baad qabanaysaa guud ahaan barnaamijyadaas waxa la yiraahaa dawladdu way kala xigsaysatay fanaaniintii iyo Maxamed Saciid Biike ee dhabarka saartay oo dhaqaale ay ku bixisay oo arrimo badan caynkaas maxaad ka leedahay aniga cid iga caawisa ma jirto laakiin taageerayaal shidaalka iyo hoteelada iyo waxa iga bixiyay jira ummadayda reer Soomaaliland xil weyn bay iga saaraan mar kasta in aan wacyi geliyo oo ka reebo wixii xun oo dhan ana isxil qaama waxa kamid ah la dagaalankii qabyaalada waxa kamid ah guul qaran waxa kamid ah nabadoon aniga qura maaha team bamro bay igu lamaan oo inama ila shaqeeyo kabarada Axmed Cali Beeye iyo Fahad waxa kamid ah inamada Dhijimaal maamulayaasha oo marba qof maamulayo xafladii bulshada danta guud u kaca waxaan badriyo ka wadaa in lagu haleeyo cidba maaha in siyaasad lagu haleeyo dalka maaha in ummaddu inay isu wada taagtaan jeclahay qofka yar iyo qofka weyn in danta guud loo wada kaco wax walba la wada dhiso iska u qabo wax lagu hagaajiyo dalka aad loo jeclaado ma sha Allah loo wada kaco marka bulshada danta guud u kaca